Guurkii qarsoonaa ama qudbasiraha sida ay Soomaalidu u yaqaanaan waa qiso dhab ah oo dhex martay inan iyo hooyadeed. Hooyadii waxa ay gashay qolka inanteeda balse waa ay ka weyday, waxayna waraaq ka heshay sariirta dusheeda, wayna akhrisay iyadoo ay gacmuhu kurbanayaan. Waxayna u taalay waraaqdu sida tan: hooyadeydii aan jeclaayay, aad baan uga xumahay inaan warkan kuu sheego. Waxaan la baxsaday saaxiibkay aan aadka u jeclaa, waana wiil wanaagsan. Hoos ahaanna waannu isu qabnay muddo 3 bilood ah. Intaas oo keliya kuma ekee, uurna waan u leeyahay. Waxa uuna ii sheegay inaynu noqonayno faamili qurux badan oo aad u faraxsan nolosha. Waxa aanu go'aansannay inaannu wadajir u noolaanno inta nolosha nooga dhiman, ubad fara badanna isu dhallo. Waana mid ka mid ah riyooyinkayga. Wuxuuna ii ballan qaaday inaan xabsi gelayn haddaan la baxsado isaga, isagoo danaynaya inuu dilo xasilloonidayda. Hooyo, ha iga cadhoon, waxa aynu u raadinaynaa daawada aydiska. Da'dayduna waa 18 jir. Iminka waan aqaanaa sida aan naftayda u ilaaliyo. Maalin uun ayaan ku soo booqan doonaa si aad u ogaatid inaad ka mid ahay ubadkaagii. Rog hooyo waraaqda. Hooyo, waan kugu ciyaarayay. Waxa aan joogaa xaafadda jaarkeena. Kaliya waxa aan rabay inaan ku tusiyo nolosha inay jiraan kumanaan wax oo ka xun natiijooyinka imtixaanka. Hooyo, maanta ayaa la soo dhejiyey natiijadii exaamka, waana dhacay. Hooyadii mar keliya ayay soo neeftuurtay iyada oo leh, exaam waxba maaha haddii ay noloshaada ii badbaaday.